maanta annaga idin yeernay guddiga haddaan nahay waxaan idinku yeernay waxay ahayd kow cod hore inaan kala war qaadano waa kala raagnay marka labaad inaan insha allahu tacaala isku hambalyeeyno shaqadaan qabanay oo runtii shaqo aad u adag ahayd mideeda saddexaadna insha allahu tacaala inaan warbixin idinka siino waxyaabaha noo dhiman oon rabno inaan qabanno ajandaha koowaad kaasuu noo yahay kan labaadna waxa waaye waxaa bilaabatay wareegii labaad oo waxaa bilaabatay ahaa golaha deegaanka gobolada oo aad la socotaan intaa wadnay diiwaangelinta iyo kaarbixinta waxaan ku dhinac wadnay in statiska sida koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo waqooyi bari inaan degmooyinkoodii aan ka bilownay inay diiwaangelin ka socotay koonfur galbeed degmooyinka baraawe marka afgooye walaweyn buurhakaba baydhabo bardaale dinsoor waajid iyo xudur diiwaangelintii waa ka dhammaatay hirshabeelle balcad warshiikh cadale iyo jowhar diiwaangelintii waa ka dhammaatay galmudug dhuusamareeb xeeraale gurceel cadaado gaalkacyo iyo xaradheere waa ka dhammaatay waqooyi bari laascaanood waa ka dhammaatay waxaa noo dhiman 12 degmo oo kale inaan dib u furno macnaa inaan furno cusub for example buuhoodle iyo taleex iyo xudun oo waqooyi bari ah hobyo meesha la yidhaahdo cabudwaaq iyo balambal oo galmudug ah iyo ceeldheer iyo hirshabeelle gobolka hiiraan dhan aan la taaban sida matabaan beledweyne jallaqsi iyo buulabird waxaan rabnaa inaan dib u furno magaalooyinka baydhabo iyo jowhar iyo dhuusamareeb oo nambarku u yaraa oo aan rabnaa inaan 2 weeks oo kala furno jowharan waxaan ka imid shalamaani daraad beri waxaan u socdaa baydhabo kadib waxaan aadi doonaa laascaanood dhuusamareeb intaas waxay naga tahay inaan dardar gelino inaan samayno beri subaxii oo ah talaado waxaa la bilaabaya kaar daabicidii 21 degmo aan dhammaynay waan rabnaa kaararkood inaan daabacno oo aan bilowno qaybintooda rabnaanka dhexdiisa waxaan rabnaa intaan qaybinaynana waxaan rabnaa diiwaangelinta meelaha kalena inaan soo gabagabayno ayaguna si fudud ku daabacno oo geyno waxaan rabnaa inaan si degdeg u qabanno golaha deegaanka ee statiska oo noqon doona ilaa 35 degmo insha Allah taala waxyaabaha aan rabaa maanta inaan ka faa'iideysana waxaa ka mid ah marka insha Allah taala inaan isku update gareeno in la gaaro feeskii labaad ee golaha deegaanka ee gobolada dalka statiska inaan bilaabi doono oo diyaarna haddana guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha oo aan hawshiisii already ku dhex jirno dhinaca kale ajandaha koowaad marka haddaan ka bilaabo oon isugu nimid maanta waxaan rabnaa annaga inaan guda galno waqti kooban oo dhow dhowr shaqo kow in la dhaariyo 390 golaha deegaanka in la train gareeyo kadibna ay bilaabaan inay isdoortaan oo doorashooyinkooda la guda galo sharciga sidoo qaba annagu shaqada iyadu waxay ku eg tahay ilaa iyo markaan dhaarino oon tababarno oo ay isdoortaan oo ay xafiisyadooda tagaan annaga shaqada waa naga dhammaatay kadib waxaa bilaabanaysa xeerkii ay isku maamuli lahaayeen waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta soomaaliya iyo dibshiisiinta wadahadalaa noo socda gacantii ku hayaan ayagan waxaan rabnaa waxoodu marka inay ayaguna soo gabagaboobaan insha allahu tacaala si loo bilaabo idinkoo markaas commissionariska oo shaqadii bilaabay iyo shuruucdoodii iyo xeerarkoodii oo yaala oo lagu dhaariyey ay ku shaqo bilaabaan lagu train gareeyo dan la move gareeyo marka waa laba shaqo isa saaran marka processkaas waa noo socdaa insha allahu tacaala jadwal buuxana waa idinla wadaagi doonaa next coming weeks ka soo socda inay heli doontaan labadaas qodob anaga muhiim noo aha maanta qodob koowaad oo ah inaan warbixin ka siino inaan wadno dhaarintii qorshaheedii ahayd iyo howlgelintii 390 golaha deegaanka iyo tan labaad oo ah inuu bilowdo wajigii labaad ee ahayd golaha deegaanka statiska oo la rabo ururadu inay baxaan oo aadaan aniga waxaan la soo kulmay madaxweynaha hirshabeelle cali gudlaawe wuxuu igu yiri ururada oo dhan waa u fureen hirshabeelle meel bay yimaadaan cabdicasiis tomorrow u socda insha Allah taala asaguna waxaan ku ballansanayn on the phone igu sheega aan rabaa inaan kala soo hadlo ururadu inay wada tagaan xarumooda furtaan galmudug already anaaba soo arkay waadhood markaan tagay magaalada gaalkacyo iyo dhuusmareeb waa joogaan ururada qaar waxaan rabnaa dadka danaynahay ururada diyaarka ah inay aadaan waqooyi bari maamulka cusub waa open heart gacmo furan
waxaan rabnaa in la isku diyaariyo saa la socotaan experience-ga aan ka qaadanay doorashadii hore ee golaha deegaanka gobolka Banaadir wax badan aan ka baranay jiro u baahan inaan dib u sameeynin delay wax la dhaho daahitaan wax la dhaho ururada awoodda leh oo raba inay gobolada aadaan waa inay gobolada degdeg u aadaan ay bilaabaan inay dadkooda campaign gareystaan ay bilaabaan inay isku diyaariyaan waa la socotaan wax la ballots la dalbi doonaa warqadaha codayntu waa astaamihiina ku qoran waa in la dalbaa oo banaanka loo dalbaa waqtiga qaadanaya marka waxa la rabaa insha Allah taala qodobkaas in la isku diyaariyo ururada oo dhan la isku diyaariyo 20 urur gobolka Banaadir galay doorasho kala u dhiman oo golaha caasimadda ah oo ayaga bas ay gali doonaan insha Allah taala maadaama golihii deegaanka bilaabeen inay ku xijiyaan golaha caasimadda iyo duqa magaalada ayaga bas tartami kara 20 urur laakiin gobolada oo dhan 60kooda urur waa u diyaarsan yihiin waa la aadi karaa marka waxaa la rabaa degdeg in gobolada loo aado oo awoodda la sameeyo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.